waxaan codfadiyaha u dhiibayaa General Abdullahi Ahmed Jaamac si uu markaasi gabagabadii barnaamijkeenu ku soo gabagabayaan idinka oo mahadsan khudbadii musharaxa madaxweynaha ayaa ka dhamaysa xafladda sharafta leh iyo qiimaha iyo qaayaha badan ee ku soo dhaweynayay muxuu ahaa lagu soo dhaweynayay murashax Khaliif Ciise Mudan aad iyo aad baan rabaa inaan idinka mahadnaqo oo mahadnaqayo kaliya qoladii soo qaban qaabisay waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha oo dhan gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed oo macmacaankan iyo xalwadaan iyo noo keenay meeshan quruxda badanna sameeyay waa ka xumay muxuu ahaa qoliyaha reer Puntland malaha gabdhaha nacibiin gabdhuhu halkan wax ka soo fadhiistaan bay ahayd laakiin insha Allah murashax madaxweynaha waxaan leenahay wasaaradaha u badi oo muxuu ahaa sida Abba Ahmed haaf ka dhig baan leenahay waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo dhammaan intii ka hadashay iyo intii ammaantay iyo intii u ducaysay murashaxa intaba waan u mahadnaqayaa waliba muxuu ahaa ugaas Umar Geelle oo da'da runta Khaliif noo sheegay maadaama ay iskuul ahaayeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa muxuu ahaa waxa weeye nasiib fiican buu leeyahay muxuu ahaa Khaliif waa nin soo halgamay Soomaaliya wax ka soo qabtay weyn Puntland wax ka soo qabtay weyn saddex madaxweyne soo dhisay waxa weeye hadal fiican baa ka dhacay duca ka dhacday abwaaniinta Ilaahay khayr ha siiyo way duceeyeen wayna madaaliyeen way dardaarmeen waxaan rajaynayaa dardaarankaas Khaliif inuu adkeyn doono waxa lagu yaqaanaa Khaliif nin aan ka bixin ballanta uu galo nin aan ka bixin sidaad u sheegteen nin deeqsiya oo run sheeg badan oo masaakiinta u taageera oo muxuu ahaa ba ku sheegteen ma ugu hiilinayo muxuu ahaa saaxiibtinimada ugu hiilin maayo ma ugu hiilinayo inaanu kolliig ahayn ma ugu hiilinayo inaanu ahayn muxuu ahaa isku difcad ahayn laakiin waxaan ugu hiilinayaa inuu maanta mudan yahay inuu hoggaanka u qabto Puntland oo meesha ay ku sii socoto iyo meesha ay taallo uu ka qaado ayaan ugu heelinayaa waa nin aan ugu ku baranay dhaqan hagaagsan inkastoo saraakiisha dhaba ay muxuu ahaa dhaqan hagaagsan leeyihiin amni iyo ammaano ayuu muxuu ahaa halku dhagiisu yahay ilaahayna quraankiisa wuxuu ku yiri لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف marka dadka in caloosh loo buuxiyo oo shaqo loo abuuro oo mushaar la siiyo amnigoodana la sugo labada wax bay ilaahayna u qabtay iyana ay u baahin waa nin labadaba aan u kalsoonahay inuu si hufan iyo si hagaagsan inuu uga soo bixi doono ما وقت قال عريريا مرة إلى سيباك لكن نكل هذا إنا بريد عبد القادر بريد بهجرني بيساني فالحكاية كسوكران لا إله إلا الله محمد رسول الله يا بريد على أي حال حنشيجي وعربا إنا أنا أنت كبر عن شيجين إنا شيء إنه نصيبه هلاي محاها شلنك هالك فدية أو نوينا يوزير كي هو رفافته محاها عبد على عسكر يعني هو وزير لا هين إنه أنت أسوي وزير أيدينا عيسى فديان وحي أمه شيء نيسا رال نمد لقيه هي رالي هذا محاها يوسف عبد الخير يو عبد على عسكرنا هذا صدق النوع بيسكو جرا هرتي اللي ورجري على أي حال مركب معها إن نكا نمعيا سوى تريوا مقدم بدحوني أهلا وسهلا الحمد لله رب العالمين إلهي رونا كدقو آد بانوكم هالنقيا أبوانك يا أبوانا دلنتير يا دمان معها فنانين تا صوماليات يعني كره هادين إن لسودوي فنان كيسي بلاد السيي waxaan rajaynayaa saad ugu tashaba waana ugu toleynaa
أنا وزير كان نقول ما يدور ديس معها وزير حاجة كان نقول ما وزير دولة كان نقول ما لكن إن كرسي أن كوب صنّو وأنكو خصبناي وأنكو خصبناي وحوي وأنك مسؤولين هاي وكسر كرامانتا دبعتها تعلم حيد مش اللي هذا بوتلاند not only بوتلاند سومالي ودنبا وحوي بوتلاند هديه هجاكتو أنت كانوا وياك إن شاء الله رب العالمين إسكوات كدتك هذا كان لي حسن عبد عين شاء خير الله سيو وبالخصب إلا إسكوه وانا الإسكوه يا بإذن الله الكريم سوماليا بكر تجسو منا كلفوجا وهالقوس وحوي حتى قبيل مقادو الله أفريقيا أنت هذا كلاته حتى ترد أي تايم بالكي مركو واحد لو كان تجيا ما تشرو وإنني أبتجي إنني أوهي إنني سيدقي يصدقي أنت اللي تنادل إمك يسوع بتصنّو دم وحوي نصنّقينا على أي حال ودردار في عن وقاضنا إننا وكوها والقلنا هدي لها إدمو أنت بان ربعنا إدراهضو كدبنا حروينا سود وصاحبكي كان الخليفة عيسى مدن ومرشح بدحوينها 2019 بوتلاند إلهي نقول قوليو سلام عليكم دمان كسوق بقلاياش حفلتان انتي سوا باب الشيء يو انت نداوون يصير دمانتي وين سلامية السلام كبعدي حد عاو شكي باي قلاينا نصيب بدناي صابته ييجا شي waxa weeye waxa jooga afar wasiir aan soo wada shaqeynay shan baa jooga waxa jooga جنرال يوسف جنرال الكجير دكتور أحمد علي عسكر محمد قدني وحاك له هلك الجوجلة وآذان وفر أحسنها وقاسكا ويري ويسكدوين لكن أنا سكلاسين وحاك له الجوجة صاحبكي أنا مالي شغادة وذا قال لي أو بايلو ذا أو جنرالا محمد سعيد أحمد الهاتمي اللي عرضها أكو أركنا عرضها مركان لو يحد قلاش هيقولها مركان عرضها دامة وحن آدم هذا علينا يا فنانينتي erayada qiimada badan halka ka soo jeediyay oo kala ahaa Mustafa Nimca Yaasiin Nimca Dareen Ismaan Yuusuf Shukri Yaasiin Abdulqaadir Bidaan iyo Royal intuba waxay sheegeen kelmado aad u qiimo badan oo xusuus ku reebaysa maskaxdayda waxaan idinka ballan qaadayaa waxaad sheegteen inaan fuliyo haddii la yiraahdo waxaan halkan uga soo jeedinayaa bogaadin boqor burhaan boqor muuse iyo suldaan siciid oo xal ku gaaray arrintii ka dhacday baran oo Allah u naxariistay suldaankii ku geeriyooday halkaas ahayd ilaahay waxaan uga baryayaa laba suldaan baa dhintay labadaba ilaahay u naxariistii ka waraabiyo waxaan kaleeto leeyahay eheladii uu ka dhintay oo ka tanaasulay xaqoodii ay lahaayeen oo ilaahay dartiis uga tanaasulay oo gartay aabahood in ilaahay dilay waxaan leeyahay isagana ilaahay ha u naxariisto idinkana khayr waara Allah idin siiyo nabad baa ka taliseen waxaan rabaa inaan sheego doorashada Puntland loo tartamayo waa sanadkii 20aad baa la marayaa 20 jir markuu gaaro waa nin weyn oo taliya Puntland inay talisaa la rabaa waqtigii la soo
barbaarin lahaa way soo dhaaftay maxaa ka dhiman Puntland dad baa isu yimi waqti bay galiyeen waxay yiraahdeen waa inaanu dhisannaa maamulka maxaan u dhisanaynaa inaanu ku kala badbaadno maxaa kale inaanu dadka ku badbaadino maxaa kale inaan Soomaali ku raadino dadkaasu fikirkoodii way hirgeliyeen waxaan qabaa dadku hadday tashadaan oo tala gaaraan taladaa ay gaaraan maalintaas waxaa la rabaa in la sii wado oo meesha laga sii wado maaha inay dib u noqoto ama ay meeshii dhaafi weyso ama meesha ku godo maaha waxaa qorshuhu ahaa in nin walba oo meesha soo mara uu meel gaarsiiyo oo ay noqoto qoriisu dhiib oo halkaas hore looga socdo waa la soo dadaalay madaxdii soo qabatay xukunka Puntland kuwoodii dhintana Allah u naxariisto kuwooda noolna caafimaad Allah siiyo madaxweyne Maxamed Cabdi Xaashi oo Mareykanka ku xanuunsanna Ilaahay waxaan ka baryayaa caafimaad inuu siiyo inuu Ilaahay caafimaad siiyo nimankaasu taariikh bay soo mareen way soo dadaaleen way soo halgameen minba meel buu soo marsiiyey laakiin waxaad moodaa hadda waqtigeenu ku jiro inay hoos u dhacday wixii oo maxaa hoos u dhacay waxa u dhacay amnigii waxa u dhacay xuduudii aanu lahayn oo la rabay Puntland in la ilaaliyo oo madaxweyne walba ku dhaartay inuu badbaadiyo inay badbaadsaneen waxa hoos u dhacay dhaqaalihii ummadda inuusan meeshii loogu tala marayn oo maanta aanu joogno la leeyahay airportkii baa la qabsaday oo maxaa loo qabsaday mushahar askar la siin waayay ilaahay baan ku dhaarshay 20 sano ka bacdi waxayna qabtay miya ana isu jawaabay maya way dastuurka dawladda Soomaaliya waxa ku yaal inay Puntland ka horeysay dastuurka Soomaaliya lagu dhaqo privilege-na ay leedahay talana la siinayo maanta taladii ma hayno waxa soo dhan waxay u baahan tahay in wax laga qabto dibna loo saxo meeshadii lagu celiyo waxa dhacaya dhibaatooyin dad baa dhibanaya dadkaas waa dad reer Puntland waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo yay ku dhimanayaan waxay ku dhimanayaan qabiil waxay ku dhimanayaan khawaarij waxay ku dhimanayaan ciyaal mindiya sita maxaa ka maqan meesha amniga ummadda loo igmaday inay dawladda buufiso dawladda waxa laga rabaa inay amniga ummadda iyadu mas'uul ka noqoto waxa ku dhintay sool ayaan dhaweyd dad 60 gaaraya dad 100 ka badanna waa dhaawacmeen kuwii dhintay Allah u naxariisto kuwa dhaawacana Allah u boogadhayo arintaas waxa mas'uuliyadda ka saaran tahay dawladda Puntland waayo waa shacab reer Puntland talaabo la qaaday ma jirto isimada aaday oo hadda jooga oo halka ka raadinaya Ilaahay ha ku guuleeyo iyagana khayr Allah siiyo laakiin doorkii amniga Puntland waa maqan yahay buuraha galgala iyo kuwa bari niman khawaarij ah oo aan u dhalan dalka oo aan u naxayn oo ku tala galay hal doorkooda ninka waxgaradka ninka caalimka inay dilaan oo sabab aan u hayn iyo qiilay ku dilaan baa jooga wax laga qabtay malaha waxay u baahan yihiin in laga saaro lagana tirtiro sida ugu dhaqso badan ilaahay idankiis xukunka hadii ilaahay dhiibo ma maqli doontaan khawaarijtaas dalkana amnigiisa waa ka shaqeynaynaa oo waxaanu ku dadaalaynaa waxaan ballan qaadayaa inaan xal u gaaro cid kasta oo khilaafaad qabiil ka dhacdo xuduudda dalkana inaan sugaan ballan qaadaya
ciidamada aanu leenahay waa geesiyaal halgamay aad naftooda u horay habeen dhaweyd maraan joogay Garowe baan waxaan tagay meel askar baan la sheekaystay waxaan bal ii warrama waxay yiraahdeen halkaan aanu joogno waxaan u joognaa xaaskii baanu biil siin weynay oo iskoolkii baan ka bixin weynay ciyaalkii oo gurigii kiradiisa aan bixin weynay oo nalkii baan bixin weynay oo biyo baan bixin weynay oo maxaa dhacay 2 sano iyo bar baan mushaar naga maqan yahay xalana madaxweynuhu wuxuu yiri baa la yiri wax la igu leeyahay ma laha askarigaasu intaas intuu ka fakaday buu farantigaaday oo wuxuu u bareeray inuu dhinto inuu dhaawacmo oo dhaawiciisa iyo dhimashadiisa cid ka fakaraysa uusan ogeyn oo mushaarkiiba hadduu waayay hadduu dhaawacmayo u dana dowladaydu waxay ka fakari doontaa in askartaas la daryeelo xuquuqda ka maqan iyo tay lahaan doonaanba aanu siino waxaan ballan qaadayaa inaan u dhisi doono cusbitaalo u gaara waxaan ballan qaadayaa kooda dhaawacma inaan daryeelo ilaa meesha u dambaysa kuwa dhintana caruurtooda inaan daryeel u sameeyo oo aan ka fikiro noloshooda iyo meesha geegsanaya waddankeena wuxuu leeyahay dhaqaale fiican khayraad fara badan maxaa ka mid ah kalluunka badda aanu leenahay waa 1330 kilomitir waa 3 meelood oo meel badda Soomaaliya markaasaa misna ilaahay wuxuu ku manaystay khayraadka ugu badan oo meelaha ugu kalluun badan bay ku jirtaa geeska Afrika kalluunkaas maraakiib sharci darro ah baa gashay oo lagu og yahay oo ka kalluumaysata cid wax ka qabatana ma laha markaasay waxay qaataan wax alla wixii kalluun ahaa dawladda cashuuri kama soo gasho royalty kama soo gasho dekedaha lama keeno wax laga og yahay ma laha 2 qof baa u kala dulaala iyo cid kale xoogaa baa laga qaataa badda la geliya xaraam weey xoolaha ummadda waxaa loo dhaartay in la ilaaliyo waana waajib in la ilaaliyo waxa idin bal qaadayaa markab aan sharciyeysnayn oo aan dekada Boosaaso soo gelin oo markuu baxayo iyo markuu soo galay aan soo gelin dekada oo aan laga qaadan wixii lagu leeyahay inuu ka kalluumaysan badaan waxa ku xiga kalluunkeena kalluumaysatadeenu waa dad danyara kalluunkay soo kalluumaystaan meelay geeyaan ma helaan meelay ka urursadaan ma helaan ilaahay idankiis waxaan u samaynaynaa meelo lagu kaydiyo kalluunkaas aanuna ka geyno suuqgeyn ugu samayno caafimaadka kalluunkaasna aan kaga fikirno ilaahay idankiis waxa ku xiga xoolaha nool nin saaxiibkaya wuxuu dhihi jiray hada dahab abyad kan waa dahab cad buu dhihi jiray waa runtiisa dahab cad waay xoolahaana aanu haysano waa capitalka aanu leenahay ugu weyn weey xoolaha aanu haysano ma haystaan dhaqaatiir fiican ma haystaan daawo fiican ma haystaan meel lagu xirmeeyo oo loo xirmeeyo ma haystaan biyo meel lagu celiyo haddii ilaahay madaxweynenimada ii dhiibo waxaan ballan qaadayaa inaan daryeelo xoolaheena si ay u noqdaan waxaanu cunaynaa xoolana caafimaad qaba ku aynu dhoofsanaynaa xoolo caafimaad qaba kuna aynu dhaqanaynaa xoolo caafimaad qaba u noqdaan waxaan maqli jiray bari waa gaari waa rumaysnaa waagaan ardayga ahaa mooska waxaana loo ka keeni jiray cadan galgalana waxaa laga soo guri jiray timir busr la yiraahdo xagaaga markay tahay waxaan haysay aqoon la'aan waxaan haysay dadaal la'aan hadda maanta beeraha ku yaala Puntland aad bay u badan yihiin waxa ka soo baxana xamar baa loo dhoofiyaa haddaydan aaminan iyo hadda aaminaysaaba waxaan u taagnaa yaanyo laga soo guray
garowe agteeda oo dayuurad la saarayo loo diraayo xamar waxa ku yaala beero fara badan oo dalagyada nooc kasta ay ka soo baxaan hadda ogaada adduunkana maanta cunno yari baa laga baqayaa cunnadana waa beeran karaa dhulkeenuna wax walba ka baxayo oo aan tijaabiyay marka waxaan ka fikri doonaa ilaahay idankiis inaan ka shaqeyno in la helo dhul ku habboon beeraha oo loo diyaariyo abuur caafimaad qaba iyo qalabkii ka shaqeyn lahaa beeraha kadibna aan u sameeyno meelo lagu iibiyo oo magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo degmooyinka waxa ku xigta waxa jirta wax ka baxa Puntland oo aan meel kale ka bixin oo la yiraahdo beeyada waa geed ilaahay ku beeray meesha xabagta ka soo go'dana ay noocyo badan tahay noocyadaas tan ugu qaalisan waa $120 tan u raqiisanna waa $28 kiiladeedii waa qaniimad ilaahay na siiyay waxa la qaadaa 2 season baa la jaraa marna 3 bilood weeye oo 500 oo tan baa laga qaadaa marna waa bilya baro 200 oo tan baa laga qaadaa marka 700 oo tan oo average $50 tahay kiiladii waa nimco weeye inaanu suuq u sameeyno oo package loo sameeyo oo adduunka loo suuqeeyo u baahan tahay waa ka shaqeynaa ilaahay dadkiisa hadii ilaahayna la qabto arrintan waxa laga hadlay ganacsigu wuxuu u baahan yahay wadooyin wuxuu u baahan yahay airport wuxuu u baahan yahay dekado wadooyinkeenu ma fiicna mana badna waa yaryihiin ganacsiguna wada la'aan ma socon karo faarax hadaaya wuxuu yiri lacag badan meesha dhig faarax bowla wadanka lacag ka buuxda ta wadankan si fiican u maamulaya wadooyin iyo dekado iyo airportna ka dhisaya waxaan ugu horeynaa waxaan qabto waa wadooyinka aada xeebaha oo laamiga ku soo xirmaya waayo dhaqaalaheena xeeb ku jira waxa kale oo aan qabanayaa wadada garowe iyo gaalkacyo u dhaxaysa way jajaban tahay mashruuc baanu helay mashruucii lagama faa'iideysan si la rabo looga faa'iideysan ilaahay idankiisa markii ilaahay ugu guuleeyo dhaqaalihii aan ku dhisi lahaa dekada gacantaan ku haya ilaahay idankiisna waa dhisayna waxaanu u baahannahay daryeel joogta in lagu sameeyo wadooyinkeena oo laga ilaaliyo inay jajabaan ama burburaan waayo cid inoo dayactirta oo inoo hagaajisa heli mayno inagu inaanu ka shaqaysanay u baahan tahay waa ku darayaa insha Allah dekada la askari waxaanu leenahay iskuulo badan oo dhalinyaro badan oo aqoon leh oo aad u maskax badan ay ka soo baxaan dhalinyaradaas shaqay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in lodku ka horeeyo oo shaqo helo si ay u higsadaan kuwa ka dambeeya dhalinyarada aan ka sheekaynayo yaa masruufa yaa koriya yaa iskuulka ka bixiya waxa ka bixisa gabar khayr qabta oo rafaad ku korisa oo hawshaas ay ku jirto xaalkeeda ilaahay og yahay oo isla maantaad ka saarto dugsiga sare biilka ku ka bixiyo oo dhibaatada ka baxad ku korinayso markuu ka soo baxo shaqo ma helo waxay tiraahdaa bal waa ay ku sii dar oo waxay tiraahdaa war bal digriga ha qaato digriga way qaadataa markaas ay tiraahdaa sanadkan weel tolo wiilka waa shaqeynaya shaqo waaya tibay isku noqotaa waxay tiraahdaa war bal tii labaad oo la sheegay lagu daro master bay ka soo saartaa shaqo laaya meeyeen dambi inagu ahayn arrintaas in dhalinyarada saa loogu dadaalayo oo saa loogu rafaadayo inay shaqo waayaan
shaqana loo heli karo waxaan ballan qaadayaa inaan dhalinyarada ka soo baxda iskuulada laga bilaabo secondary ilaa jaamacadaha aan shaqo siiyo oo aan cid kasta oo ka shaqaysa dalka ka hormariyo iyaga sababtoo ah iyaga u xaq leh iyaga madaxdii berri inay noqdaan siyaasiyiin inay noqdaan maamulayaal inay noqdaan maayaro inay noqdaan barasaabyo ballan baan idin qaadaya waxaa kaleetoo jirta dumarka Puntland boqolkiiba 65 weeye haddaynan ka badnayn baarlamaanka waxaa kaga jira 2 gabdhood inta kale waxay sugayaan shaqo inay qabtaan shaqada ay qabtaan aad bay u yar tahay golaha wasiirada ku yar yihiin waxay ku yihiin maamulka wasaaradda ay ku yar yihiin waxay ku yar yihiin meel kasta oo dawladda looga shaqeeyo waxay ku yar yihiin shirkadaha private-ka oo dalka ka shaqeeya bay ku yar yihiin waxaan ballan qaadayaa inay ka helaan saamigooda shaqo kasta oo dalka jirta ma tan wasaaradda ilaa shirkadaha kuwa u shaqeeya ballan baan qaadayaa inay helaan xaqooda waxaan markaa hadalkaas sii dheerayn maayo waxaan ku soo koobayaa Soomaaliya caawa halkan waa la wada yimi baa la yiri aad bay farxad gelinaysaa Soomaaliya waa dalkeena waa dadkeena in aanu ka fikirro sidii Soomaaliya looga saari lahaa balaayadan ku habsatay oo meel walba dagaalka iyo dhibaatada ka jirta laga saaro oo la mideeyo oo Soomaalidan arki jiro Soomaalida ahayd eenu soo celino oo laga fikiro inaanu doorkii lahaa qaadano waa ka shaqeynaynaa laakiin tan aan maanta u taaganahay waa Puntland waxaan ballan qaadayaa markaan Puntland hagaajiyo oo aan dhinac walba ka hagaajiyo oo xuduudeeda sugo oo amnigeeda sugo oo dhaqaalaheeda ka shaqeeyo inaan Soomaali weyn raadiyo taasoo dastuurka ku jirta waxaan idinka codsanayaa inaanu kulligeen ka fikirro sideenu dalkeena isugu keeni lahayn Soomaali sideenu Puntland u dhis lahayn sideenu u horumari lahayn wadankeeda waxaanu ku soo jirnay muddo 20 sano ah xildhibaano 66 oo ilaaliya sharciga kana mas'uula ilaalada sharciga wax badan bay soo qabteen shuruuc badan bay dejiyeen khayr Allah siiyo marka waxaan u baahanahay inaanu tallaabo kala qaadano oo u gudubno in qof walba codkiisa doorto wax ku doorto oo uu soo doorto maayarka barasaabka la doorto madaxweyne ku-xigeenka la doorto madaxweynaha la doorto oo qof walba oo reer Puntland uu bixiyo codkiisa kuna doorto qofkii uu isleeyahay waa u qalmaa dalka waxaan ballan qaadayaa inaan hirgelinayo arrintaas sanadka u horeysa gudihiisa weliba 6 bilood u horeysay haddii la yiraahdo waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Mastar Caynaanshe oo Soomaalinimada ka hadlay runtii waa wax qiimo badan ballankaad weydiisatay ilaahay idinka waa fulinaya waan arki doontaa marnaba hadalka intaan ku dheeraado waxaan mar labaad mar saddexaad mar afraad u mahadcelinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay weliba si gaar ah waxaan ugu qayb galinayaa odayaasha dhinacayga fadhiya oo iyagoo qaarkood xanuunsan yihiin isa soo tiilay say ixtiraamaan oo halka yimi waxaan aad ugu mahadcelinayaa fanaaniintii qaaliga ahayd oo aanan ilaaweyn kelimada yiraahdeen oo halkan inooga soo jeediyey kelmado iyo erayo qaaya leh waxaan u mahadcelinayaa hablaha halkan fadhiya dhammaantood oo ka kala yimi haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bay isugu yimi waxaan u mahadcelinayaa intii soo abaabushay xafladan iyo intii fikirkeeda lahayd oo ka shaqeysay waxaan idin leeyahay
waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqeeyo sidaan u difaaci lahaa amniga Soomaaliya waxaan ka ballan qaadayaa intii aan hortiina ka ballan qaaday inay siday tahay u fuliyo ilaahayna waa marxaanti idinkuna marxaanti baatiin waxaan kaleeto oo aan ku soo gabagabeynayaa asxaabtaydii ilaa airportka aanu nimi ilaa maantana la socotay oo saaxiibo badan ahaa waxaan aad u mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed iyo tan Puntland oo intuba abaabulka hawshan ka mid lahaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaashay Khaatumo oo tiri waligay ma iman xaflad Puntland oo caawa timi waa guul weeye walaashay aad baan kugu mahadcelinayaa adiyo tiimkaaga waxaan rajaynayaa inaan wixii ka dambeeya saa u wada socono oo hal tiim ahaano kulligiin waa idin mahadcelinayaa ma malayn karaysaan saan u jeclaa inaan sii hadlo laakiin misna waxaan rabaa inaan tixgeliyo dadka waaweyn oo meesha fadhiya hablaha hooyooyinka carruurta ka soo tegay iyo dadkiina kaloo shaqooyin qaarkood inay jiraan leeyihiin ay suurtoodo waxaan idin leeyahay Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha guulaysato Puntland ha horumarto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi